بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada warbaahinta ee Soomaali Info oo idin soo gudbinaysa waraysi ay la yeelatay shabakada saadanews.com madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland State of Somalia Dr. Ahmed Farax Ducaale oo ku sugan magaalada Muqdisho si aad uga bogataan waraysigaasi oo dhameystiran ee dhegeysi haboon بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت dhegeysanayso oo dhan magaalada Muqdisho waxaan u imid arrimo la xiriira dawlad goboleedka Jubbaland iyo xiriirka ka dhaxeeya dawlad goboleedka Jubbaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya xarunta magaalada Muqdisho in aanu bal talooyin iska weydiino in aanu kala tashado in aanu magaranaysaa wixii aanu isla meel dhigi lahayn maadaama waqti dheer hadda uu gudbay in aanu bal dawladda isla fiirino aragtina isdhaafsano ayaanu imid magaalada Muqdisho aniga oo soo maray intaana halka imanin dhowr wadan oo Yuruba wadanka Turkiya iyo Emiraadka oo aan maalmo soo joogay ayagana shirar ku soo galay iminkana aan ku laaban doono insha Allah saasaanu imid Muqdisho haddana u jooga wartay waxaad noo sheegtay inaad shirar ku soo gashay dalka Imaaraadka Carabta inta aad ku sugnay shirarkaasi maxaa looga hadlayaa sala qaadat shirarkaas waxaan la qaatay dad mas'uuliyiin oo dawladda Imaaraadka waxaase ugu macno weyna dadka Soomaalida ah ee reer Jubbaland ama Soomaalidaba ku dhaqan dalka Emirateska ayaan la qaatay shirar kala gooni oo kala duwan shirarkaas oo uga wada hadlaynay danaha guud ee Jubbaland gaar ahaan iyo danta guud ee Soomaaliya oo dhan adiga oo aqoon isweydaarsi iyo wada tashi ayaan u soo maray meeshaas dadkaana si fiican baa ii soo dhaweeyeen si fiican baan maaragtay arintaas uga soo falanqaynay shir labaad oo ka balaaranna iminka ayaan u tagayaa oo socdaa insha Allah intii aad ku sugnayd magaalada Muqdisho wali ma la kulantay madaxda dalka may wali lama aan kulmin waan wada hadalay oo akhbaar waa isdhaafsanay maaragtay aan toos ahayn laakiin shirka iyagii aan ku kulmi lahayn oo toos u wada fariisan lahayn waan oo dhiman yahay wali balse waan sugayaa hawlihii maamulka Jubbaland xagee marayaan hadda Jubbaland arinteedu maanta waxaan oran karaa waxay maraysaa meeshii ugu wanaagsanayd waxa mahad ilaahay inkastoo oo dhibaatooyin badan soo marnay caqabado badan ay jireen haddana waxa faa'iido weyn ah oo maanta aan ku faraxsanahay in ugu dambeyntii ururkii igad oo maaragtay qas iyo lab nagu waday oo maaragtay faragelin xad dhaaf nagu hayay in ay hadda ka fariisteen oo ay garowsadeen in ay tahay wax aan loo baahnayn in faragelin inta la eg loo geysto waan soo dhaweynaynaa wixii gacana oo ay naga siinayaan marka uga baahano oo aanu anagu codsanno wax badan baan hadalka ku celceliyay bal waxaad moodaa hadda aakhirkii waa mahad eebe inayba garteen oo ay hadda yiraaheen wixii shirarkii isdaba joogga ahaa oo dhibaatada un abuurahayay igad hadda way ka joogsatay oo farahay kala baxday dawladda federaalka Soomaaliya way kala hadashay arintaas oo wax badan baa laga wada hadlay waxaana aakhirkii mahad ilaahay la isku wada raacay oo igadna ay ogolaatay in ay uga dambayso u deyso maamulada iyo maamul u sameynta dhulka Soomaaliyeed ama Jubbaland ha ahaato ama gobol kale ha ahaade dawladda Soomaaliya iyo shacabka degan dalkaas in ay iyagu ka tashadaan marka xaaladda Jubbaland waxa la oran karaa hadda marxalad wanaagsan bay soo gaartay oo hadda taladu ay ka go'do dadka degan dalka oo u dhashay oo Soomaaliyeed iyo gacan ay ka helaan dawladda Soomaaliya ee federaalka bal waxaad warbixin kooban naga siisaa xiriirka idinka dhaxeeya maamulka meel gaarka haatanka Carbiya magaalada Kismaayo iyo maamulka Kismaayo hadda maanta ciidan shisheeye ayaa gacanta ku haya taas ma ahan wax cidna ka daboolan ama ka qarsoon Kismaayo lama dhihi karo waa dal xor ah hadda ciidamo shisheeye haysta iyo ciidamo beeleed oo isgarabsanaya maamul ka jiraana haduuba ka jiro maamul waa maamul hadeed aan ahayn mid u shaqeeya ama la shaqeeya bulshaweynta Jubbaland ma ahan ciidan un magaalada qabsaday weeye markii uu waqtigeeda la gaaro oo maaragtay la helo waxa iyo waqtiga ku haboona maamulkii loo sameeyay oo Jubbaland baa jira oo anigu madaxweyne ka ahay ciidamada jooga oo shisheeyeen hadda dalka kulli way ka bixi laakiin hadda ma dhihi karno
maamul baa ka jira meeshaas. maamulku hadduusan ahayn maamul ummadda dalka ku dhaqano ay samaysatay iyadoo raalli ka tahay, maamulkeeda ma ahana waa un dal iyo dal la haysto weeye. taana ilaa laga xoraynayo maamul baa ka jira Kismaayo, hadda ma dhihi karno. taasoo haddee tan Jubbaland state ay ku salaysan tahay weeye. sideedaba ummadda dalka degan haddii aanay iyadu raalli ka ahayn maamul ay samaysatay uusan ahayn, maamul ka shaqayn karaa ma jiro. mar walbanana mabda'a aan ku shaqaynahayay aniga iyo dowladda Jubbaland, maamulkii aanu samaynay wuxuu ahaa inuu mar walba maamulku ahaado mid ummadda meesha degan ee dadka dalka u dhashay ay samaysteen, ku heshiiyeen, ay wada dhisteen, ayna isku raacsan yihiin. taana waanu ogollahay. waa gartay miyayna habboonayn intii maamul deegaanadii aan iminka ku sugnayn oo ay ciidamo kala joogaan intii laysku mashquulin lahaa in siyaasiyiinteena midba maamulka sheeganaya aad iskugu tagtaan oo fikirka quraad ka wada qaadataan arrintaas? maamul hadda waqtigan xaadirka ah lagu degdegi karaa ma jiro horta sidiisaba. maamulkii aanu samaynay markii u horreysay oo Jubbaland state ahaa oo la sameeyey sanadkii hore, sanadkii 2010 aakhirkeedii ayaa weli jira. laakiin inta dalka Jubbaland uu kala go'an yahay oo uusan isu socon karin, maamul shaqayn kara oo la samayn karaa ma jiro. arrimaha kan maaragtay waayahan dambeba la waday oo igad ay dabada ka riixaysay oo dad dan gaar ah laho ay dabada ka riixahayeen in maamul loo sameeyo oo la boobsiiyo oo Kismaayo maamul loo sameeyo. Kismaayo waa magaalo ku taala Jubbaland. Jubbalandna waa la haystaa, ciidamo kala duwan baa haysta, ciidamo shisheeye ah haysta, Al-Shabaab baa qaar haysta, beelaa qaar haysta. sidaa daraadeed ilaa dalka Jubbaland oo dhamme uu xor ka noqon hayo oo doolow ilaa Kismaayo si xor ah laysaga soconayo iyadoo oo aan cidna laga amar qaadanin, maamul la sameeya oo shaqayn karaa ma jiro. sidaa daraadeed annagu haddaan nahay reer Jubbaland, cid kasta oo wax ku dhawaaqday, cid kasta oo wax doonaysa, cid kasta oo wax rabta inay samayso oo Jubbaland ka samayso wax ka noqoto, waa soo dhaweynaynaa. ha yimaadeen, waan wada fariisanaynaa, waan wada hadlaynaa. laakiin ciidan baan wataa oo ciidan shisheeyaan dalkii ku qabsanhayaa, lagama wada hadli karo, waxna dhex mari karaana ma jiraan, mana shaqaynayso arrintaas. ciidamada Kenya waxay caawinayeen ciidamada Soomaalida oo sida la socotid Al-Shabaab awood weyn bay ku lahaayeen magaalada Kismaayo oo waxay ahayd magaalo istiraatiiji oo dhaqaale badan uga soo xaroon jiray. ciidamada Kenyana awood bay ku siiyeen ciidamada Soomaalida in ay magaalada Kismaayo galaan. arrintaas miyay la oran karin Kismaayo lama xoreeyaan haddii aysan ciidamada Kenya qayb ka qaadan? walaale waad mahadsan tahay, balse su-aasha meesha taallaa waxay tahay Kismaayo yaa laga xoreeyey, yaase loo xoreeyey? Al-Shabaab Kismaayo way haysteen, waa run, waa ognahay. laakiin Al-Shabaabna waa laga xoreeyey, yaase xoraystay? mase annagaa naloo xoreeyo, Soomaali baa loo xoreeyey, mise ciidan dan kaleeta leh oo shisheeye ayaa qabsaday? marka waxaa weeyaan finka guuro boogu guur weeye. yacni Al-Shabaab waa ka tageen Kismaayo, qarkeedaysa fadhiyaan oo lagama saarin oo lagama wada kaxaynin. ciidamo shisheeyaa qabsaday, ciidamo beeleed baa qabsaday oo ciidamada ku xiran. marka Kismaayo waa la xoreeyay. iyada lafteeda su-aal meesha waxaa weeyaan, su-aal baa ka taagan. haddii ay ujeeddada ciidamada Kenya ay ahayd in ay Al-Shabaab ka xoreeyaan Jubbaland, waxaa ahayd haddaba wadada keliya oo furanu ciidamadii in ay socdaan oo Jubbaland oo dhan la isu furo. maxaa keenay ciidamadii gedo ka soo xoreeyey Al-Shabaab in ay ceel waaq la yiri ma dhaafi kartaan oo halkaa iska fadhiyaan, oo Al-Shabaab ay u jiraan Kismaayo wax ka yar 20 kilomitir oo la yiri halkaa jooga? ma magaalada Kismaayo la doonayay mise Jubbaland baa la doonayay in laga xoreeyo? ciidamadaasi yaa u diiday in ay deegaanada sheegaysa ay gaaraan? waxaa u diiday ciidamada dalalka deriska ah oo wadanka maanta ka taliya. arrintaas arrin qarsoon maaha. ciidamadii markii ay soo xoreeyeen gado inteedii badnayd waa la xakameeyo oo caqabad baa la hordhigo, ma socon kartaan baa la yiri. sidaa daraadeed bay Buurdhuubo, Baar Dheere iyo inta dhulka u dhow oo dhan ilaa Kismaayo meel u jirta ilaa 15 kilomitir keliya hadday ugu badnaato ayaa waxaa weli haysta oo fadhiya Al-Shabaab. sababta marka loogu fiirsanaya maxay tahay? haddii dalka laga xoreynayay dan kale ay taajirtaa leeyahay. marka waa gartay in badan waxaad ku soo celisay in magaalada Kismaayo qabiil qabsadeen, bal dadka u bayaan arrintaasi. meesha waxaa jooga ciidankii Kenya oo qabsaday iyo ciidankii la socday oo la baxay Ras Kamboni. arrintaas arrin hadda anugu inaan faahfaahiyo
u baahan si gooniya ma aha cid waliba way ogtahay cid kasta oo la socota siyaasadda Soomaaliya iyo arrimaha Jubbaland iyo arrimaha Kismaayo way ogyihiin ciidamada Ras Kambonina beel weeye ciidamo beeleed weeye Kismaayana beeluma deganay Soomaali oo dhan baa degan 19 qabiil oo Soomaali oo waaweyn baa degta dhulka kan Jubbaland ma ahan maaragtay dad baa waxay yiraahdeen 8 baa degta laakiin waxaasu waa wax maaragtay la sii kala sarrifay weeye 19 beelood oo Soomaaliyeed inay beel qurahi ciidan shisheeye ayadoo kaashanaysa ay ka taliso Jubbaland horta wax dhacaya ma aha aqal xumo weeye ninkii ka damaaciyena waxa weeyaan waxaan soconayn buu damaaciyay waa riyooday sidaa daraadeed Ras Kamboni ciidamadeedu waa ciidamo beeleed weeye waxba lama maldihi karo waxayna kaashadeen oo dalka qabtay ciidamada dawladda deriska ee Kenya markii dambena isu bedelay AMISOM ciidamada Afrikaanka ee laga maamulo AMISOM ay maamusho balse Kismaayo Soomaali ma qabanin mana haysato beel iyo dawlad shisheeye ciidamadeed oo iskaashanahaya ayaa maanta haysta Kismaayo maxaa wacay cid tagi karta oo aan Ras Kamboni ka amar qaadanin ma jirto oo ka degi karta Kismaayo for example ciidamadii wax ka xoreeyay oo weligood ka dagaalamahayay waa loo diiday inay magaalada xataa soo galaan ama ay joogaan ku joogan waa laga saaray sidaa daraadeed arrimo beeleed baa meesha ka socda waxaasuna wax shaqeynaya ma aha Soomaalidu meesha way wada degtaa Soomaali oo dhamma inay isu timaado weeye Jubbaland system in loo sameeyo weeye ciidamada shisheeye way bixi xagee baa la geeyay marka haddii ciidamada sameeyo meesha joogi ma hayaan su'aashu taa weeye igad miyaan la soran karin dhaqaalaha ku baxa maamul sameynta Jubbooyinka ayada kaalin weyn ka qaadatay sidii ay siyaasiyiin ku kala aragti duwan maamul sameynta deegaanadaas isku keenay lahayd miyaan la oran karin door muhiim ah ka qaadatay igad inay kharash badan ku bixisay maamul u sameyn isku dayga ama shirarka ay ku qabanayso Nairobi iyo meelaha kaleeto waa run taadoodi kama taagna igad shaqadeedu waxay ahayd inay ku ekaato in ay wixii gargaara ee ay uga baahato bulshaweynta Soomaaliyeed ee maamulka iyadoo loo sameeynayo samaysanaysa waxay uga baahato inay ku gargaarto laakiin igad ma ahayn dad iyo kooxo iyo maamul gacan ku rimis ah in ay ku jujubto ama isku daydo inay ku khasabto bulshaweynta Soomaaliyeed ee reer Jubbaland igad xaqna uma ilahayn mushkilad samalahan hadda arintaas waabay dhamaatay waxa mahad Ilaahay igad inay hadda garatay aakhirkii dawladda federaalka oo kala hadashay anna aan wax badan ka hadlay meel walba oo shirarkaas laqdabada lagu dhisahayay oo lagu shirinhayay oo lagu hayeyna sababtii aan u diidahayay laga soo bilaabo bishii February 2012 sababta aan uga qayb gali waayay shirarkaas oo u diiday waxay ahayd in aanay arintu ahayn arin dhulku dhul igad leeyahay ma dhulku dhul Soomaaliyeed weeye annaga dhulka dadka u dhashay waxaanu niri mar walba oo aanu mar walba taagnayn igad waxaanu ku mahadinaynaa haddii ay gacan nagu siinayso hawlaha naga aanu qabsanayno laakiin in ay ayadu noo samayso mid aan shacabka yagii iyo bulshadii Soomaaliyeed ee dhulka deganaa ayna raalli ka ahayn taa weeye mid aan isku diidanayn haddaba haddii kharash badan ku bixinaysay in ay shiriso dad aan mathalin dadka dhulka u dhashay dad aan mas'uul ka noqon karin bulshaweynta dhulka ku nool oo u dhalatay haddii lacagtaas lacag khasaartay weeye balse hadda waa bay fahamtay hadda dhibaatadaas waa iska yaraatay intaasi ayay ku ekeed waraysigii ay la yeelatay Saadaal News madaxweynaha maamulka Jubbaland State of Somalia Dr. Axmed Faarax Ducaale oo ku sugan magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale idin soo tabinaysa shabakada Somali Info waa anigoo Maxamed Bashiir oo idinku dhaafiya sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh